waxay weli toos rasaastu uga socotaa gudaha hoteelka SYL ee gudaha magaalada Muqdisho ee ka soo horjeeda xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. kooxdan weerarka ku soo qaaday hoteelka SYL ayaa la rumaysan yahay in ay ka soo gashay dhanka ceel gaabta oo loo soo maro madaxtooyada Soomaaliya iyagoo markii ugu horeysay rasaas ku furay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ilaalinayay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya. haddaba cali aadan muumin oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho ayaa la xiriiray shakhsi ka mid ah dadkii xilligaasi ku sugnaa gudaha hoteelka isagoo oo weydiiyey bal qaabka ay ku bilowdeen iyo wuxuu arkayay sabab waxa qad kasta soo ugu jira qof kamida dadka hoteelka SYL ku jiray markii weerarku dhacayay waxaana uu yahay qof wariye ah oo muuqaal duubayay waxaanu inooga warramayaa bal waxa uu arkay ama og yahay iyo xaalku sidoo ahaa soo dhawo walaal waxay cali aadan oo ma santahay afaara markii laga soo baxay makribka ayaan u soo aaday inaanu ka qayb galno xaflad meesha ka dhacaysay oo aanu qayb ka noqono warbaahinta markaanu jadwalkiga marayno hoteelka SYL lagu baaro qalabyada laga galayo ayaa waxaanu xog orod ka maqalay dhinaca iyo ridda madaxtooyada kadibna waxaa bilaabatay rasaas xigta oo labada dhinac isdhaafsanaya dabcan waxaa lagu soo dhaftay derbiga hoteelka bambo iyo bambooyin lagu soo tuurayo kadibna waxaan usoo baxna dhinaca iyo maxaa la yidhahdaa ridda beerta nabadda dhinaceeda laga aado SYL hotel ciidan ayaa nagu hor yimaadeen waxay nagu amray meesha laga geli karin iyadoo rasaas ay socoto kadibna waxaan ku laabanay dhinaca iyo ridda gudaha hoteelka SYL dhinaca kale waxaa ka socday bandhiga buugga ubad iyo arxanlaawe oo ay soo bandhigtay Xamdi Mahad Faarax oo ka tirsan qorayaasha Soomaaliyeed. ila kale oo nala xiriirnay ayaa noo xaqiijiyay in xildhibaankan oo aanan magaciisa haynin uu ka mid yahay dadka ku dhaawacmay gudaha hoteelka SYL. wixii xogay ka soo korodha arrimahaasi kala soco Hubaal Media.